xilli dhawaan ra'iisul wasaaraha dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid uu maamul u magacaabay gobolka Gadow qayb ka ah israaca saddexda gobol ee Jubbaland ayaa waxaa maanta shir saxaafadeed uu ku qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose Xuseen Sheekh Cabdi Ismaaciil Xuseen Faray gudoomiye xilka waaye ee gobolkaas Gadow ayaa waxa uu kaga soo horjeestay maamulka kumeel gaarka ee gobolka Gadow isagoo sheegay in maamulkaasi uu yahay mid sharci darro ah isla markaana ka hor imaanaya waxyaabaha uu qorayo dastuurka dalka ما ها إن راها مالي وبنتن مسؤولي تجو شرعه وجرب مرة هدي ضدك أيه جامين أيين أو دستور كأنصح صدي وهدي له ما يصير شغل هاي ومنوها وكل رقم لها ديار صدي لورا بيسي أيجا هدي أيجا أي جرب مرة يان مالي والبنسيب دروي تاس أرنتا أيضا أنا وحوي وحنا وحنا كتيرون هذا يراتي ضدك أيجا أود ولا معمول كي مسؤول معمول كي الشقين ويا دورتان إنه يسكردان وكوكرة دورتان أيجانا حقول إنه هايستان هدو شقين يسير من وشقين Xuseen Sheekh Cabdi Ismaaciil Xuseen Faray gudoomiyihii hore ee gobolka Gadow hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay inuu isagu yahay gudoomiyaha rasmiga ee gobolka Gadow isla markaana uusan ictiraafsanayn maamulka kumeel gaarka ee haatan ka arrimiya gobolkaasi Gadow aniga ayaa gobolka gudoomiyihiisa dadku sida sharciga ay u doorteen waxa uu magacaabayna wax ka jira ma jiraan hadda marka la dhiso Jubbaland wixii ka dambeeya ayay bulshadu xaq u leedahay in ay inay si kumeel gaar ah u magacaabato maamulada gobolada ay u magacaawdaan ama se ay muxuu ahaa kuwoodii hore ay muxuu ahaa u sii hayaan ama hadda kuwa cusub ay markaas si sharci ah u soo doortaan bulsho waliba ama gobol walba dadku ku nool ay soo doortaan waxa taas ka duwan oo sharci ah ma jiraan haba yaraatee si kastaba ha ahaatee hadalkani ka soo yeeray gudoomiyihii hore ee gobolka Gadow Xuseen Sheekh Cabdi Ismaaciil Xuseen Faray ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhawaan ra'iisul wasaaraha dalka uu maamul u magacaabay gobolka Gadow kadib kulamadii uu kula qaatay magaalada Kismaayo dhinacyada maamulka kumeel gaarka ee Jubbooyinka ay ku soo idlaadeen isfahanwa waxaana gobolka Gadow ee maamulka loo magacaabay uu qayb ka yahay saddexda gobol ee la magacbaxay Jubbaland Cabdi Mahad Bashiir Maxamed Bashka Universal TV magaala xeebta Kismaayo